degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado waxay ka mid tahay degmooyinka ay sida ba'an u saameeyeen biyaha fatahaadda ah ee deerta Elino iyadoo weli ku jirto xaalad adag oo ka dhalatay biyihii fatahaadda ahaa. waxaa weli fadhiyo biyo xoogan kuwaasoo si siman u fadhiya gudaha suuqa iyo xaafadaha magaalada. midabka iyo urta biyaha waa isbedeleen wayna adag tahay in la dhex maro, waxayna magaalada halis ugu jirtaa inay ka dilaacaan cudurro halis ah iyo caafimaad darro ballaaran. gudaha magaalada waa cidlo oo gabi ahaanba waa laga barakacay iyadoo dadka ay daadsan yihiin daafaha magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada. waxaa duugmay ceelashii iyo baraagihii biyaha laga cabbi jiray, taasoo sababtay in la waayo biyihii la cabbi lahaa amaba cunnada lagu karsan lahaa, waxaana ka dhalatay oon ama haraad daran. waxaa burburay guryo badan kuwaasoo isugu jiro goobo ganacsi iyo xaafado, iyadoo weli ay xiran yihiin goobihii waxbarashada, caafimaadka iyo cibaadada intuba. si kastaba ha ahaatee, xaaladda guud ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa ah mid cakiran, waxayna dadku u baahan yihiin gargaar bani'aadanimo oo deg deg ah. Xuseen Cabdi Ibraahim, warbaahinta qaranka, degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado.